بسم الله الرحمن الرحيم. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa saxaafadda sharafta leh inaad halkan aanu soo nimaadna caaway. waxaan rabnaa halkan inaan ka soo jeedino shir jaraa'id oo ku saabsan booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku yimid magaalada Gaalkacyo. ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka reer Puntland, isimada, waxgaradka, ganacsatada, dhalinyarada sidii aadka u wanaagsanayd saraakiisha iyo madaxdaba sidii aadka u wanaagsanayd loogu wada diyaar garoobay soo dhaweyntiisa markuu dalbaday inuu Puntland ku yimaado booqasho intii muddadii maadaama uu joogay magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug. waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen. annaga wasiiradayadan qayb ka mid ah shalay ayaanu nimid subaxii Gaalkacyo. waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada Galmudug oo uu halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqeynayo nabadeeda meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca Puntland. waxaan u nimid marka inaanu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay'adaha kala duwan ee shacabka aanu xoojino soo dhaweyntiisaas. nasiib darro tan iyo shalay waxaanu ku jiray kan Puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay, laakiin waxaa dhacday in la isla afgaran waayey hanaankii loo soo dhaweyn lahaa oo ay tahay Puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dego aeroboorada isagoo Puntland booqanaya. waan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka Galmudug ee Gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka Puntland ee Gaalkacyo. waxaasan nasiib darro ah waan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtogeli weyday ayna ku adkaysteen ra'iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayaba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey protocol, umaanaan imaan inaannu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo, laakiin waxaanu u nimid waxaanu rabnaa inaannu dad bannaanbax samaynaya aanu dhex gallo. arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horeeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhalinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaas la mid ah in loogu diyaar garoobaya haddii la haydmo. halkan waxaanu ku haynaa jadwalkii aan idinla wadaagaynaa aan u diyaarinay maantay waan rabnaa inaan saxaafadda la wadaagno jadwalkaasoo koobaya habmaamuuseedka aan ugu talagalay soo dhaweyntiisa oo ay ku jidho xataa inuu dego oo ku nasto dhanka Puntland muddada uu joogo. arrintaasoo ay ahayd arrin raalli la isaga ahaa Puntland iyo Galmudug. hase yeeshee markii aanu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka Galmudug ayadoo xoogaa dib u dhaca jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xooga la xiriiray, waxaa dhacday hanaankii iyo maqaamkii aan ugu talagalay si mas-uuliyad darro ku jidho inuu ra'iisul wasaaruhu u diiday. wuuna yidhi anugu hanaana raaci mayo, umana socdo inaan isimno u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmee iyo dad su'aal ay weydiinaya. waxaan u socdo waxa weeye dhalinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo. dhalinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaba diyaar u ahayn jadwalkay ku jidhaa, laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas-uuliyad ra'iisul wasaarenimo. waxaanan leeyahay
maahan xasan cali khayre waa saaxiibkay shakhsiyan aniga laakiin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ee Soomaaliya waanu ognahay maantay heerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geedi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas'uuliyad dheellitiran ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dawladnimo haddii aan aragnay wixii maanta ilaahayna tusay aan maqli jiray cimrigaaga dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa maanta waxaanu aragnay waxay ahayd wax u baahnaa dad badan oo Soomaaliyeed ma reer Puntland dad badan oo Soomaaliyeed nala arkaan waxa dhici karta kuwa badan inay hore u arkeen laakiin iska aamuseen waxaan leenahay waxaan cududaar ka siinaynaa isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhaweeyaan oo ay ku soo dhaweeyaan madaxtooyada Puntland caaway ra'iisul wasaaraha wixii dhacay oo aysan ahayn wax mudankooda ah waxaan rajaynaynaa haddii la ahaydmo arrintaas inay noqoto mid ay ka dhalato faham aragti dheer leh oo ah sidii Soomaaliya lagu badbaadin lahaa waxaan kaloo jeclahay halkan inaan fursaddan uga faa'iideysto magaalada Gaalkacyo ee galmudug iyo Puntland ama guud ahaan galmudug iyo Puntland waxaan ognahay meesha laga keenay waxaan ognahay inta dadaal loo soo maray waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii dadaalkaas horena uga shaqaysay kana shaqayn jiray intii dhibaatana Allah u naxariisto inta nool Ilaahay cimrigooda ha dheereeyo oo waliba rag kamida raggii u soo cediyo go'ay ay maanta joogaan dalka waan ka xusayay General Gorod oo bilad gaar ah ku helay sida uu qaybta uga qaatay dadaaladii looga soo gudbay hadda dhacdooyinka ka dhacay muddadii dambe 2015-2016 magaaladan maantana nabadda lagu waarayo halkan aynu ku helay waxaan ka digaynaa marka uguna baaqaynaa dhammaan dadka reer Puntland iyo dadka reer galmudugba inay ilaashadaan nabaddaas Ilaahay siiyey inay ka fogaadaan waxa la wixii keeni kara xasarad dadkan looga tago ra'iisul wasaaraha iyo dadka la socdaahi waa inoo yimaadeen waana inay ka tegayaan laakiin waxaa la rabaa habdhaqanka aan u malaynayno inuu dhinac marsan yahay baahidii dawladnimada Soomaaliya u qabtay inuusan noqon mid raad ku reeba dadka walaalaha ee reer galmudug iyo reer Puntland waxaan rajaynaynaa in dawladnimadooda iyo nabadooda iyo wada noolaanshahooda ay sii xoogaystaan waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan intii ka shaqaynaysay reer Puntland iyo reer galmudug in ra'iisul wasaaruhu si wanaagsan uu ku joogo halkan oo uga shaqeeyo oo labada dhinacba uu qayb ka noqdo nabadda iyo horumarka waana ka xunahay gabagabada meesha hadda ku soo dhamaatay